Muddo 3 sano ayaa ka xigta Turkiga u dabaaldegidda sanad guuradii 100aad ee ka soo wareegatay aasaaskii Jamhuuriyadda Turkiga. Markii uu soo idlaaday dagaalkii koowaad ee dunida, xulafadii Britishka ayaa ahaa kuwii ku adkaaday dagaalka. Xilligaa kooxihii laga adkaaday waxaa ka mid ahaa dowladdii Cusmaaniyiinta oo dhul baaxad weyn ka talinaysay. Waxa uu ahaa waqtigeedii ugu xumaa 600 oo sano oo ay maamuleysay mandaqad aad u weyn. Sanadahaasi ayaa ay la kulantay caqabado ay xamili weyday. Dadkii deganaa dhulalkii ay maamuleysay, xoogagii reer Yurub iyo boqortooyooyin kale ayaa wiiqay awoodeedii. Waxaa abuurmay koox oo hormuud u yahay Mustafa Kemal Atatürk oo u dagaalamayay madax-bannaanida Turkida kadib markii ay wiiqantay boqortooyadu. Dagaalo badan oo ay la galeen Griigii iyo Armaaniyiintii iyo isla Cusmaaniyiintii iyo qaybo ka mid ah dalalkii ay boqortooyadu ka talinaysay ayaa kalifay inay noqdaan kuwo jaangooya arrimaha Turkida. Waxaa bilaabmay xilligaa xoogagii reer Yurub ay heshiis la galaan kooxdii Mustafa Kemal Atatürk. Heshiiskaas ayaa dhaliyay in la aasaaso Jamhuuriyadda Turkida ee maanta jirta. Heshiiskii xilligaa la galay waxaa ka mid ahaa aasaasidda Jamhuuriyadda Turkida, in meesha laga saaro ama la tirtiro boqortooyadii Cusmaaniyadda, in dhulkii ay maamuleysay ay gacanta ku dhigaan dalalkii dagaalka ku adkaaday sida Britishka iyo Faransiiska, inay xornimo siiso Armenia, Bulgaria iyo qaybihii Griiga, in Jamhuuriyadda Turkiga ay noqoto dhulka ay maanta maamusho uun. Waxaa kaloo ka mid ahaa heshiiska in boqorkii xilligaa ee Cusmaaniyiinta dalka laga masaafuriyo isaga iyo qoyskiisaba, hantidiisana lala wareego, in marinka Istanbul ee loo yaqaano Bosphor Strait ee badda madow ku xeera badda Mediterranean-ka uu noqdo marin caalami ah oo maraakiibta dalalkaasi ay si bilaash ah ku maraan. Ogowna, marinkaasi sanad waliba 50,000 oo maraakiib ganacsi ah baa ka goosha, waana kan labaad ee dunida ugu mashquulka badan. Turkigana dhexmara haddana uusan wax canshuura ka qaadan. Aasaaskii jamhuuriyaddu waxay bilow u ahayd soo noolaashihii jiritaankii bulsho ee Turkida. Dowlado badan oo isaga dambeeyay kadib Erdogan oo maayar ka soo noqday Istanbul, xisbigii uu aasaasay ayaa ku adkaaday doorasho dhacday 2002. Xilliyada Turkigu dhaqaale xumo baahsan buu la daalaa dhacayay. Isla maalinkaas suuqyada sarifka ee Turkiga ayaa qiimo sare gaaray. Tan iyo xilligaas oo dhaqaalaha Turkigu ahaa kaliya 234 bilyan oo dollar, Erdogan siyaasadiisu waxay ahayd inuu Turkigu maqaamkii uu mudnaa ku celiyo. Dhowr doorasho ayuu ku guuleystay, sidoo kale dhowr afti ayuu qabtay uu wax kaga bedelay siyaasadii Turkiga, uuna guulka keenay. 11 sano oo ra'iisul wasaare ahaa 2014 ayuu noqday madaxweynaha dalka, maadaama uu doonayay in awoodda ra'iisul wasaaraha iyo maamulkaba madaxweynaha u wareegto. 2 sano kadib xilligaa, Turkiga afgembi dhicisoobay baa ka dhacay. Erdogan dalka waxa uu geliyay xaalad degdeg ah. Turkiga inta uusan afgembiga dhicin waxa uu ku jiray heerkiisii ugu sareeyay xagga dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka, amniga, wax soo saarka iyo tiknoolajiyadaba. Sanad kadib ayuu Erdogan ku dhawaaqay afti dastuurka wax looga bedelayo oo nidaamka ra'iisul wasaaraha iyo dowladaba baarlamaanka hoostaga meesha lagu saarayo oo dalku noqonayo mid hoostaga xukunka madaxweynaha, dowlad ahaan iyo qaran ahaan. Aftidaasi waa uu ku guuleystay. Isla sanadkii xiga ayaa la qabtay doorashada dalka oo isla isaga ayaa loo doortay. Sanadii 2010 ayuu Erdogan ku dhawaaqay higsigiisii 2023 oo la doonayay in Turkigu ku gaaro guulo waaweyn oo ay ka mid yihiin kow ka mid ahaanshaha 10 dal ee dunida ugu dhaqaalaha badan. Xilligaa kaalinta 16aad buu ku jiray, maantase dalka 18aad waaye. Iyo gaaritaanka dhaqaalaha dalka 2 trilyan, xilligaa 940 bilyan oo dollar ayuu ahaa, maantase waa 813 bilyan oo dollar. Waxaa kaloo ka mid ahaa gaarsiinta dakhli sanadeedka dadka Turkida ah 25,000 oo dollar, maantase waa 9,000 oo dollar. Higsiga waxaa ka mid ahaa
in alaabta Turkidu dibadda u dhoofiso ay gaarto 500 oo bilyan oo dollar, maantase waa 180 bilyan oo dollar. Waxaa kaloo ka mid ah in ganacsiga shisheeyaha ee Turkiga gudihiisa uu gaaro 1 trilyan oo dollar, maantase waa 390 bilyan oo dollar. Waxaa kaloo ka mid ah dadka shaqeeya ee Turkida inay gaaraan 30 milyan. Taas waa lagu guuleystay oo maanta waa 32 milyan baa shaqeysa. Sidoo kale in xaddiga shaqo la'aanta la gaarsiiyo 5% oo maanta ah 11%. Hiigsiga waxaa ka mid ah oo kale dhisidda xarumo lagu bacrimiyo nuclear-ka, tamarta iyo waxyaabo kale. In caymiska caafimaadka dalka 100% wada gaaro wadanka. In tirada dhaqaatiirta Turkida la kordhiyo oo 1,000 ee Turki ah ay helaan ilaa 210 dhakhtar. Maanta 170 dhakhtar ayay helaan 1,000 ee dhakhtara 1,000 ee Turki ah. Taasoo ka dhigaysa dhaqaatiirta Turkida inay kor u dhaafeen 990,000 oo dhakhtar. Dhisidda wadooyin tareen oo 22,000 oo kiiloomitir oo nooca tareenada dheereeya oo cusub. Dhisidda wado 15,000 oo kiiloomitir oo highway ah. Kordhinta dekedaha dalka iyo ballaarintooda si dekedaha dalku uga mid noqdaan 10 dekedood ee ugu waaweyn caalamka. In warshadaha dalku soo saaraan diyaarado rakaab iyo baabuur iyo satelleedyo. In dalku noqdo dalka 5aad ee dunida ugu dalxiiska badan, sanad walbana ay booqdaan 50 milyan oo dalxiisayaal ah. Dakhli 50 bilyan ahna laga helo. Maanta waa dalka 6aad ee dhanka dalxiisayaasha, waxaa booqda 39 milyan sanadkii, waxaana ka soo xarooda 30 bilyan oo lacagta dollarka Mareykanka ah. Caqabado dhowr ah ayaa hor istaagay hiigsigaasi. Waxaa ka mid ah afgembigii dhicisoobay iyo hoos u dhicii lacagtii liirada ee sanadkii 2018, taasoo kaliftay in hiigsiga qaybtiisa uu rajo yareeyo, balse iminka Turkigu wuu ka soo kabtay. Sidoo kale waxaan meesha ka marnayn in Turkiga siyaasadiisa dibadda saameyn ballaaran ku yeeshay. Waxa kala cadayn in heshiisyadii uu la galay 100 sano ka hor uu Turkiga masixi doono 100 sano guuradii iyo in kale.